صعدت روحه إليك ولم يعد بيننا وبينه إلا الدعاء. اللهم ارحمه واغفر له وانظر إليه بعين لطفك وكرمك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan booqanay agoontii uu ka geeriyooday maxruumkii Cabdi Xasan Axmed oo aanu guddoonsinay qadar raashina iyo xoogaa lacaga. halkan waxaan uga mahad celinayaa macallimiinta kulli meel kasta joogan. waxaan la wadaagsan halkan waxaan ugu ducaynaynaa marxuumkii geeriyooday ee ka baxay bahda waxbarashada isagoo ahaa macallin muddo dheer shaqaynayay oo 30 sano Soomaaliland iyo in ka horeysayba shaqaynayay oo bulsho badan soo saaray. waxaanu leenahay agoontiisii murugada waan idin la qaybsanaynaa bahdii waxbarashada ka mid tihiin يعني وحوي أقوى هرنا ولا أقوى مبين ممكن ولا أقوى مبيا إن قلبك أتكيستان إلهي سمري إيمان إذا كسيو إن أدين كونوا دكمو بحنا دما ونقب حي وأنا قبل هالكيس ونقب بنانتي حيسد دي سيبا نقب بنان وحكي لدايو وعرورتي أرضي السوقيين إنه أسوا بكسدو وحرقو إن شاء الله تعالى إما كان قبرك أيين وجود عيننا وحوي أشر فربضان أيو نكاسو كتجي مربضان بكتجي وحن كلها هاي مرودي سي adigoo kaliya kaamu dhimanay dhamaan way naga wada dhintay Cabdi marka insha Allah ta'ala inuu samiriyo iimaan qaadato ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa nimankan waxaan u dhiibayaa gudoomiyaha bismillaahir rahmaanir rahiim anuu magacaygu yahay Cabdi Axmed Cali ahna gudoomiyaha gobolka Maroodijeex macallimiinta maanta waxaan booqanay Allah u naxariistay marxuum Cabdi Xasan Axmed macallinkii weynaaye naga baxay dhawaan waxaan halkan ku wadnaa wax weyn ma aha waa waxa yar oo macallimiintu ku deeqeen oo qadar iyo lacag ah iyo raashina oo agoonta la gaarnay insha Allah ta'ala laakiin dadaalkaygu inta ku meekan doono waan garab taagnaan doonaa agoonta yar oo ka tagay macallinkii macallimiinta aad iyo aad u mahadsan dhammaan inta ka soo qayb qaadatay qaraanka tacsida ee macallinka waxaana leenahay saalo khayr halkii laga soo atay Ilaahay khayr inuu bedelo تكلام درسنا واحد ويا دمان اللي سكرب تاجنا هذا معلمينتو ومن الدل يعني ما بكتشيل عسان أما كجيرو ده أقول كتجا يعني أقول تكرب تاجنا إنه يعني اللقطة مداي إنه وضنا يشوكتينه أو أي كويرتان معلمين تكلا سبحان الله رون شوكته إنه مثله ما أنت ويرتها أنت إنه قدر كإنه أقول تكوير تشيلنا إن شاء الله تعالى وإنه مشوكتها بين قضونتها وإنه أنتم كويكان مركب معلمين تفريم بنو فريالكن معلمين تسكتير سنادان وجودان أقول تودا معلم كتير ولا الكود ما نبغى جيرده ولا خلاه رياه أصلا وحيدين أنا الوكل تجيني إن السكرب تجناده هذه بنقول بهالعلينا وحن نتصل قدرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوا أوركا معلمين تقارن كتير سومالان مركا مجلس الصلاة الجابية إلى السلطة تعسي أن لو ذا جينا قويس كان وكجريودي عبدي حسن أحمد وها معلم وين ومدة غير سو شقيني قرن كيسة وسو أديجي وشقيني هايسا نقطين وجيريو وقت كيسي وحنا لنا هاي إن الله هو إن له راجعون قيسكي يقرأ بدي وكجيريو أنا سمي إيمان صادق على الله كسيبان لنا سكر وحنا وين أو كلام كتعزين قرن كجمهورية الصومال لندن وسارد وحبرشة جمهورية الصومال وكتر سنة مدة دير وحنا لنا قيسكي قرابة دي وكجيريو مر لبعض يمرصد حد بقى إن إلهي سمريو إيمان صادق كسيو أنا قلنا وما أساسين إن أنو معني سياسة كلا أو وسارد وحبرشة وكلام جران سين أنو هؤلاء هدي قبلنا لكن وحنا أساسين تبارين معلمين تباريسن هدو معلم كتشيفو وتشرحسين هي يهدو جيريو ده بقى إن أنو وحي أنو كقبل كرنو أنو قبل دونه ما هكذا قرا وحويان معلمين تقارن كتير سنة قبل كستو أي شوغان بقى وحور كانوا لسه إنه إسكرب يستاجو أو باهي هذا
wixii uu ka qaban karo uu la qabto marka assalaamu calaykum intaas ka baan salaam calaykum warahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan joognaa gurigii agoontii uu ka baxay macallin marxuum cabdi xasan axmed oo aan soo booqanay annagoo matalaynaa walaalaha iyo bahdii macallimiinta qaranka ururka jamhuuriyadda somaliland ee macallimiinta ee salto gobol iyo degmo iyo tuulo meel kasta ay joogaanba runtii waxaanu saaka u nimi walaal inaanu qaadhaankii aad soo ururseen iyo ka qayb qaadashadii taxsiilaad ka soo qayb qaateen inaanu ku wareejinno qoyskii iyo caruurtii uu ka tegey macallinkeenii qaranku cabdi xasan axmed oo muddo dheer usoo shaqeynayay qaranka muddo dheerna xanuunsanayey runtii hawl wanaagsan baad qabateen dhammaantood idin mahadnaqaynaa ka qayb qaadashada wanaagsan aad samayseen aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ka tacsiyeynaynaa qoyskaa uu ka tegey marxuumku iyo caruurtiisiiba aad iyo aad baan uga tacsiyeynaynaa oo maanta ay nala joogto ama aan la joogno qoyskii iyo marwadiisiiba aan la joogno aad baan uga tacsiyeynaynaa runtii macallimiinta qaranku waa adeegayaasha bulshada mar walba waxay ku hawlan yihiin sidii ay da-yar usoo saari lahaayeen markaa maalinta ay dhibaataysan yihiin in laga qayb qaato la garab istaaga waa mid dhammaanteen nagu waajiban mudan oo bulsho waliba siday isku xirfad u tahay ay isu taageertaa maantana dee taagteennu baynu u gurmanay insha allah waxaan rajeynaya dhammaan macallimiinta wixii tabaalaysan inaanu ka qayb qaadano ayaynu insha allah rajeynaynaa waana hawl noo socon doontaa horena inoogu socotay insha allah marka dambena inoo sii socon doontaa waxaan kaga mas-uulahay ama aan kaga wakiilahay goobtan dhammaantay aanu kaga wakiilnay guddoomiyihii guud ee ururka macallimiinta cismaan jaamac axmed iyo gudoomiye ku-xigeenkii guud ee ururka macallimiinta cabdiwahaab faarax cali ayaanu ka wakiilnay marka aada iyo aad baad mahadsantihiin tvgana waana mahad celinaa tvga qaranka ee nagala soo qayb qaateen aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan macallimiintaas soo bixiyeyna waxaad walaal ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee kalka furanad uga qayb qaateen intan iyo inka badanna waa laynaga sugayaa gacmada jir wax ku gooyaan walaalkeena ilaahay qabriga ha u nuuro maalmihii khayrka lahaa buu dhintay ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo reerkaa uu ka baxayna ilaahay samiriyimaa khayr qaba ha ka siiyo cawl khayr qabanaya bedelkiisa in ilaahay ha siiyo wixii karaankeenna inaan ka qayb gelanaa aada iyo aad ba umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu الحمد لله إلهي بامهد له ولا إلهي بامهد له إذن كان وحن إلهي إذن كبريا إنه تسايق إذن سيو وحي أتكنتين وألاب وناكسن وهديد وناكسن ما أنت واليس وذا أجيهاي حالة ضحى وانسكور هينا مركا واحد كنتين بوغشة أوكليان وحلو دقاعشرين marka walaal waan idin ducaynaynaa idinkana ilaahay idinka abaal mariyo iyagana ilaahay ha u naxariisto anigu inanka eedadiis baan walaalkay baa dhalay sidaas aan walaalo idinku ducaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu